wiil isagoo 16 jir ah xubinta taranka laga burburiyay muxuu ku dambeeyay. ruuxa haddii la dhibo aad ayuu isku bedelaa, laga yaabee in uu bahal noqdo, awood badan uusan hore u lahaynna la soo baxo. xataa bisadda haddii albaabka ku soo xidhato oo aad garaacdo laga yaabee in ay libaax kugu noqoto. haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wiil isagoo 16 jir ah xubinta taranka laga burburiyey muxuu ku dambeeyey. qisadan ayaa dalka indiya ka dhacday. wiil lagu magacaabo biljawaan oo agoon ahaa ayaa wuxuu ku soo koray xerada agoonta ee adrana ee ku taalla gobolka andhra baradesh ee dalka indiya. biljawaan markuu 16 sano gaaray ayuu hawooday maclimadiisa oo ahayd tii soo barbaarisay tan iyo intii uu yaraa, maxaa yeelay wiilasha xeradaasi ku jira gabdha maysan arki jirin ilaa haweeneydan oo maclimadda u ahayd, taas oo wiilka ku qasabtay in uu hawoodo. maclimaddu waxay ahayd haweeney aan nin qabin, kan yarna wuxuu ku fakeray fursaddaas inuu ka faa'iidaysto. maclimadda ayaa aad uga carootay dhaqanka indiya. marka la fiiriyana waa ceeb in maclimad uu naagaysto wiil ay macallin u tahay ama uu wiil ay soo korisay hawoodo. caradeedii waxay dhalisay in ay xaniinyaha ka burburiso si uuna mar dambe haweeney dambe u hawoon. wiilkii yaraana aad ayuu uga carooday arrintaas ilaa uu ka weynaaday. markuu 22 sano gaaray ayuu ka baxay xeradii agoonta wuxuuna furtay beertaas uu ka shaqaysan jiray muddo. wuxuu isagana bilaabay in uu magaalada soo aado. mar kasta uu magaalada yimaadana wuxuu shukaansan jiray gabadha markuu duurka geeyo ayuu dili jiray, meedkeeda magaalada ayuu ku soo celin jiray. arrintan oo kale Soomaaliya ayay ka dhacday 60kii ka hor intii aan xornimada la qaadan, waxayna ahayd sheeko caan ka ahayd Soomaaliya oo nin lagu magacaabi jiray oo tabeeba wadka naagaha ayaa maalin haweeney ballan ka qaaday in ay isguursadaan, kadibna ballantii ayay uga baxday. arrintaas ayuu ka carooday, toorrey ayuu qaatay, wuxuuna bilaabay haweeneydii ka hor timaado inuu dilo. ninkan ayaa la sheegaa in haweeneydii ugu horreysay uu dilo ay ahayd walaashiis. habeenkii ayuu haweenka dili jiray, gabdhaha way ka baqi jireen ayadoo gabdhaha lagu oran jiray maqribkii markii la gaaro ha bixinina oo tabeeba wadka naagaha yuuni diline. markii dambe markuu dhowr haween uu salfaday ayaa dowladda dishay isagiina. qisadan ninka hindiga taas oo kale ayay la mid tahay oo wakhtigan ayay dhacday kana dhacday dalka indiya. ninkii wuxuu sidaas ahaadaba maalin walba gabar ayuu shukaansadaa wuuna dilaa. booliiska iyo ciidamada sirdoonka aad ayay u raadiyeen si ay u soo qabtaan ninkii sirdoonka ugu darnaa oo aadka u daba joogay ayuu dilay. markii dambe waxaa jirtay gabar la shaqayn jirtay ciidamada sirdoonka dalka indiya, taas oo shil gashay, labadeedii lugoodna ku weyday. ayaa sida ay warbaahinta ugala socotay sheekada ninkan markii dambe isku xil saartay in ay raadiso ninkan ayadoo ka xumaatay haweenka iyo sida loo laynayo. markii dambena waa ay ku guulaysatay in ay soo saarto. markii maxkamadda la keenay ayay haddana bilowday in ay u doodo ninkii dilaaga ahaa, oo waxay maxkamadda ka sheegtay in ninkan lagu xadgudbay isagoo carruur ah oo xubintiisii muhiimka ahayd laga burburiyey. taasna ay ku qasabtay inuu cadabtinimo u qaado haweenka maadaama ruuxa sidaasi ku sameeyey ee haween ka awood badan ay ahayd. laakiin arrintaas maxkamadda way diiday oo waxaa lagu xukumay xabsi cimri. qisadiina halkaas ayay inoogu dhammaatay. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay sheergarey si ay dad kale uga faa'iidaystaan, leeg inoo saar, sabskreibka naga iloobin. mahadsanid.